magacaygu Axmed Cabdiraxmaan Saalax Axmed Heykil waxaan ku faraxsanahay inaan maanta joogo Jaleelo company halka shirkadda Laas Group ay ku taalo waxaan ka mid ahay oo hogaaminayay dhalinyartii reer Burco runtii Burco laga soo saaray in ay Jaleelo soo arkaan soo dalxiiskii safar dheer oo ilaa Burco Hargeysa maantana halkan aan joogno ayuu ahaa waan ku faraxsanahay waan ka mahad celinaynaa waxaan muujinaynaa runtii in Laas Group ay runtii dhalinyarta wax badan gashteen ku soo celiyeen deetay shaqo gelin oo shaqo abuurayaan oo runtii dhalinyaro badan runtii ay intifaacsadaan yaadeen in wadanka ay wax soo saar weyn ku soo kordhiyeen ba halku dhigaygu maanta wuxuu ahaa Jaleelan joognaa lisna waan cabaynaa Jaleelan joognaa lisna waan cabaynaa waa halku dhigayga aad baan ugu mahad celinaynaa runtii maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha kala duwan ee company-ga Laas Group aad ba maasan halkan aynu joognaa maaha Europe maaha America maaha Kenya maxaa la dhahdaa Canada waa shirkadda Laas Group warshadan ay noo qalabaysay oo ah meel 35 kiiloomitir u jirta magaalada Hargeysa ahna deegaanka Jaleelo fariintan sidna reer Burco gaarsiinana waxay tahay waa lis la wada leeyahay Burco lis waa wada lis magacaygu waa Zakariya Maxamuud Cismaan ka soo kicitay magaalada Burco kuna sugan Jaleelo warshada SPI-da waxaan ka soo kicitay shalay magaalada Burco waan uga soo kicitay Jaleelo Hargeysa aad iyo aad baan horta maanta uga tacajabnay quruxda iyo bilicda iyo dhismeedka ama qaab dhismeedka uu leeyahay warshadu aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ganacsatayaasha warshadahan oo kala damacsan maanta inay ka abuuraan dalka sida ay dhalinyaradu jaanis wacan uga hesho maanta waxaan aragnay dhalinyaro fara badan oo ku sugan halkan oo aan isku barno ka shaqaale ka ah magacaygu waa Marwa Cabdirashiid Cali ka timi gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco halkaasna u soo bartay safar aad u dheer si ay u timaado Jaleelo una daawato muuqaalka quruxda badan leh ee amazing-ka shirkaddan Laas Group amba SBI run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka noqdo daawadayaasha ama dalxiisayaasha ka imi meel fog oo ka imi Burco aan ka mid noqdo dadka nasiib u yeeshay dadka gaarka nasiibka u yeeshay inaan imaado shirkaddan run ahaantii shirkaddani waa shirkad yani xataa haddii aan isniraahno maqal ahaan iyo cod ahaan dadka ugu fasira aanan ku fasiri karin qof indhihiisa ku saarka mooyaane yani markaad gudaha soo gashid ma is odhanaysa Somaliland bay ku taalaa waxaan wadnaa like inaan nimka Europe joogno inaan Canada waxba ma ogin maanta halkan aanu taaganahay maaha Latin America maaha Europe maaha Australia maaha wadanka loo shisheeye waa dalkeenii hooyo وهرين الله سبحانه وتعالى أيانو مهد علينا ونص رجلي سفر كان المهد يبدأ وحنو مهد علينا كمباني جا SPI كوكاكولا وسفر كان نصاص عري نكاني حرون تودي إلا أيو شلا أنتي أنو برعي جريا يكسوكيني أنو يجاو معسونين رنهانتي وحياة بدن أو مقرن الساعي نجددنا أما أنا شركة دمرك وركا أمسنين أنو هالكن كلا نو أرجني dhammaan aanu aragnay wax kasta oo kamida shirkadda ama warshada ama mashiin kasta soo shaqeynayo haday tahay safety haday tahay quality iyo haday tahay wax kasta aad iyo aad baan u bogaadinaynaa company-gan anigoo kamid ah dalxiisayaashii ka yimi Burco waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ku suganahay shirkadda Jaleelo ee Laas Group iyo SBI waa shirkad aad iyo aad shirkaddan u qurux badan waa shirkad aad iyo aad loogu tabcay waa shirkad aan oran karo oo wax lagu mahadiyo inay shirkad saas oo kale u weyn inay ku taalo Somaliland oo laga hirgashado Somaliland iyadoo ah wadan yar oo kooban oo aan haysan maxay tooyeen wadan yar oo aad u kooban oo aan haysan ictiraaf haddana ay ka jirto shirkadda saa u weynka maan filanaynin maanta shirkaddan oo kale inay aan kala kulmayo ama Laas Group ay saas oo kale ay tahay laakiin waa wax Ilaahay lagu mahadiyo alxamdulillah baan oran karaa waxay noo horseeday taas waa nabadda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xamdiye Yaasiin Bile waxaan ka yimid gobolka Burco waxaan joogaa shirkadda Laas Group waa meel aad iyo aad horta runtii u qurux badan waa shirkad cajiib ah waana markii ugu horeysay aan imaado waxyaabo badan baan kula kulmay oo wallahi aad iyo aad ii cajab galiyay ismanaan lahayn yani waxaad imanaysaa meel sidan oo kala ama shirkad sidan oo kala runtii aad baan ugu farxay